asalaamu calaykum asxaabta haddii lagu weydiiyo ciidan la'aan dal ma jiri karaa dabcan dadka badankoodu waxay odhanayaan maya haddaba maanta waxaynu barnaamijkeenu kusoo qaadan doonaa dalal aan ciidan lahayn balse marka hore kusoo dhawaada kanaalka dalka ugu horeeya ay maanta barnaamijkeenu ugu hadleyno waa indora ma lahan ciidan la sheego laakiin waxay heshiisyo la seexatay Spain iyo Faransiiska si loo ilaaliyo ciidamo tiro yaryar oo si mutadawacnimo u shaqeeya ayaa isxilqaama xilliyada munaasabadaha si loo soo bandhigo bandhig qurxoon waxaa jira ciidan loo tababaray la dagaalanka argagixisada iyo soo deynta lahaystayaasha waxayna qayb ka yihiin booliiska qaranka qarashaadka ciidanka waxaa bixiyay Faransiiska iyo Spain iyadoo loo marayo heshiis aan rasmi ahayn oo ka dhexeeya saddexda dal dalka labaad waa Dominica ma aysan lahayn ciidan la taaban karo laga soo bilaabo 1981 difaaca dalkan wuxuu ku tiirsan yahay Regional Security System af Soomaali ahaana nidaamka amniga gobolka Regional Security System oo loo soo gaabiyo RSS waa nidaam caalami ah oo lagu difaacayo dalalka dhaca bariga gobolka Caribbean-ka dalalkaas tiradoodu waxay gaarayaan ilaa 7 dal dalka xiga waa Grenada ma aysan lahayn ciidan laga soo bilaabo 1983 waana markii la kala diray ciidamadii xoogga dalkan kadib duulaankii Mareykanka ku qaaday dalkan ciidanka booliiska ee loo yaqaan Royal Grenada Police Force waxay leeyihiin unug gaar ah oo loogu talagalay nabadgelyada mas'uuliyadda difaaca dalkan waxa uu qayb ka yahay nidaamka amniga gobolka ama Regional Security System-ka aynu goor dhaweed ka soo sheekeynay dalka kale ee maanta aynu ka hadlayno waa Kiribati sida ku xusan dastuurka dalkan ciidamada kaliya ee la ogol yahay waa booliiska oo ay ku jiraan qaybta ilaalada badda ee amniga gudaha ciidamada ilaalada badaha waxay ku qalabeysan yihiin hub fudud waxayna haystaan hal markab oo loogu talagalay ilaalinta badda difaaca dalkan waxaa mas'uul ka ah Australia iyo New Zealand waxaana ka dhaxeeya heshiis saddex geesood ah dalka xigana waa Liechtenstein waxay ciidan dhan iska joojisay 1868 maxaa yeelay waxay u arkaan mid qarash badan ku baxa ciidamada waxaa loo baahan yahay kaliya xilliyada dagaalka laakiin dalkan xaalad dagaal ma uusan galin weligiis Liechtenstein waxaa ilaaliya ciidan booliis ah oo ku qalabeysan hub yaryar si ay u fuliyaan waajibaadka amniga gudaha caawinta dalkan iyo difaacadiisa waxaa u xil saaran Austria iyo Switzerland iyadoo loo marayo heshiis aan rasmi ahayn oo ka dhexeeya saddexda dal dalka xiga waa Marshall Islands tan iyo aasaaskii wadankan ciidamada kaliya ee la ogol yahay waa booliiska oo ay ku jiraan qaybta ilaalinta badda ee amniga gudaha qaybta ilaalada badda waxay ku qalabeysan yihiin hub aad u yaryar waxayna haystaan hal markab oo ilaalo ah oo loogu talagalay ilaalinta xeebaha difaaca dalkan waxaa mas'uul ka ah dowladda Mareykanka waxaa xiga dalka lagu magacaabo Federated States of Micronesia tan iyo aasaaskii dalkan ma jirin ciidan la sameeyay ciidan kaliya ee la ogol yahay waa booliiska kuwaas oo ilaaliya xeebaha dalkan ilaalada xeebaha waxay ku qalabeysan yihiin hub aan sida u badnayn waxayna haystaan 3 doomood oo loogu talagalay roondada waxaana lagu kala magacaabaa FSS Balikir FSS Micronesia iyo FSS Independence difaaca dalkan wuxuu hoos imaadaa dowladda Mareykanka dalka xiga waxaa loo magacaabaa Nauru ama Republic of Nauru dalkan difaacadiisa waxaa mas'uul ka ah Australia iyadoo loo marayo heshiis aan rasmi ahayn oo ka dhexeeya labada dal si kastaba ha noqotee waxaa jira ciidan booliis hubeysan oo aad u tiro badan iyo ciidamo kale oo kaaba ama caawiya amniga gudaha dalka xiga waxaa lagu magacaabaa Belau tan iyo aasaaskii dalkan ciidamada kaliya ee la ogol yahay waa booliiska oo ay ku jiraan 30 qof oo ilaaliya xeebaha dalkan ilaalada badaha waxay haystaan hal doon oo roonto ah waxaana lagu magacaabaa Remelik iyo doon kale oo ay ugu deeqday dowladda Japan oo lagu magacaabo Kedam caawinta dalkan iyo difaaciisa waxaa mas'uul ka ah dowladda Mareykanka dalka kale waa Saint Lucia waxay leedahay booliiska Saint Lucia waxay ka kooban yihiin laba qayb oo yaryar oo ka kooban 116 qof oo kala ah qayb adeega gaarka ah iyo qaybta ilaalada xeebaha labada cutub ayaa mas'uul ka ah amniga gudaha difaaca dalkan wuxuu hoos yimaadaa nidaamka amniga gobolka ee loo yaqaan Regional Security System-ka dalka xigana waxaa lagu magacaabaa Saint Vincent and the Grenadines booliiska dalkan waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo sidii militariga isu abaabula oo ka kooban 94 qof kuwaas oo kala ah qaybta adeega gaarka iyo qaybta ilaalada xeebaha labada cutub ayaa mas'uul ka ah amniga gudaha difaaca dalkan wuxuu hoos yimaadaa ama uu ku jiraa nidaamka amniga gobolka wadanka xigana waa Samoa tan iyo aasaaskii dalkan ma jirin ciidan la sameeyay si kastaba ha noqotee waxaa jira booliis iyo qayb kale oo qaabilsan ilaalinta xeebaha qaybta ilaalinta xeebaha waxay ku qalabeysan yihiin hub fudud waxayna haystaan doon lagu magacaabo Navanua
sida ku xusan heshiiskii saaxiibtinimada ee 1962 New Zealand ayaa mas'uul ka ah difaaca dalkan. Dalka xigana waxaa lagu magacaabaa Solomon Islands. Horey waxaa ugu jiray dalkan ciidan ka hortaga rabshadaha ilaa ay burbureen kadib khilaaf soo kala dhexgalay qowmiyadaha dega dalkan. Laakiin Australia, New Zealand iyo dalal kale oo dhaca Pacifiga ayaa soo kala dhexgalay si ay u soo celiyaan sharciga iyo kala dambeynta. Laga soo bilaabo xilligaas ma jiraan wax ciidan militari ah oo uu dalkan leeyahay. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira ciidan booliis ah oo aad u tiro badan iyo unugyo kale oo qaabilsan ilaalinta xeebaha. Qaybta ilaalada xeebaha waxay ku qalabeysan yihiin hub yaryar waxayna haystaan 2 doomood oo loogu talagalay roondada oona lagu kala magacaabo Oki iyo Lata. Laga soo bilaabo sanadkii 2017 difaaca dalkan ma jiro cid ka mas'uul ah. Dalka xigana waxaa loo magacaabaa Tuvalu. Tan iyo aasaaskii dalkan ma jirin ciidan la sameeyay. Si kastaba ha noqotee waxaa jira ciidan booliis oo aad u yar iyo qayb ilaalisa xeebaha. Qaybta ilaalada xeebaha waxay ku qalabeysan yihiin hub fudud waxayna haystaan 1 doon oo loogu talagalay roondeynta waxaana lagu magacaabaa Temataili. Dalka ugu dambeeyana waxaa lagu magacaabaa Vatican City. Dalkan ama magaaladan waxay leedahay ilaalo loogu magacaabo Gendarmerie Corps. Waxaa loo sameeyay inay ilaaliyaan amniga gudaha. Sidoo kale waxaa jira ilaalo loogu magacaabo Pontifical Swiss Guard oo ah ciidan ku hubeysan warmo iyo seef kuwaas oo loo xil saaray ilaalinta boobka. Ma jiro heshiis difaacid ah oo ay magaaladan la leedahay Talyaaniga, laakiin si aan rasmi ahayn ayay ciidamada Talyaaniga u difaacaan magaaladan. Ilaaladii hore ee lagu magacaabi jiray Palatine iyo Noble Guard waxaa la joojiyay sanadu markay ahayd 1970. aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wacan ee aad ila socoteen. intaas ayaynu jecelaystay inaan maanta barnaamijkeena kusoo ekeeno. Fadlan haddii aad video ka heshay like saar, haddii aadan ka helinna 2 mar dislike taabo.